muuqaalkani step by step waxaa kuugu tusi doonaa haddii kombiyuutarkaagu yahay Windows sida isaga iskaan gareyn kartid isla markaana isaga saari kartid dhammaan viruseska yaryar adigoo aan la soo degin wax software adigoo aan wax lacag ku bixinin. Ugu horreyn waxaa isticmaali doontaa shortcut-kan Windows+R kadibna boxigana marka uu kuu soo baxo waxaa ran gareyn doonaa command-kan MRT ku qori doontaa meeshani kadibna waxaa leedahay okay. dan marka uu boxigani kuu soo saaro waxaa laga yaabaa adiga inuuna kuu muuqanin waa allow gareynaysaa ama waa u ogolaanaysaa abkani inuu change ku sameeyo markaa kombiyuutarkaaga yes baa leenahay. mar kale muxuu kuu soo furaa daaqadani soo daaqadani maxay kuu sheegaysaa sida arkaysid software-kani automatically by default ahaan wuxuu la socdaa Windows-ka waxaa loo yaqaanaa Microsoft Windows Malaysia Software Removal Tool automatically wuxuu awood u leeyahay inuu ka iskaan gareeyo isla markaana uu ka saaro dhammaan viruseska yaryar ee markaa kombiyuutarkaaga ku jira. Marka si aan u ran gareyno waxaan leenahay next kadibna waxaad adeegsan kartaa saddexdan option si aad u iskaan gareysid. Waxaad adeegsan kartaa quick scan in isla markii lagu iskaan gareeyo ama full scan baad adeegsan kartaa haddii markaa kombiyuutarkaagana dab fiican uu ku leeyahay by the way aad waqti u heli kartid markaa kombiyuutarkaaga aad isticmaalaynin waxaa fiican inaad adeegsatid full scan ama waxaad adeegsan kartaa customized scan. marka anigu hadda waxaad adeegsan doonaa quick scan maadaama muuqaal duubayo aan doonayo inaan si dhaqso ah marka loo iskaan gareeyo kadibna waxaa dhihi doonaa markaasi next kadibna waa sugi doontaa wax ku xiran tahay faylasha kombiyuutarkaaga ku jira marka maybe inay qaadato 5 minutes or 6 minutes. sida marka aad arkaysid markuu scanning ka dhameeyo scan resultigi waa kana no malicious software was detected. marka hadda waa arkaysaa wax virus oo aniga ku jira kombiyuutarkaaga gudihiisa ma uu jiro dena symbol waxaan leenahay finish. marka qaabka symbolka baa kombiyuutarkaaga dhammaan viruseska yaryar oo dhan adoon wax software la soo degin isaga saari kartaa isla markaana isaga protect gareyn kartaa. muuqaalkana intaas ku eegyahay.